السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijkii aqoon isweydaarsiga ahaa ee fahamka islaamka. qaybtan saddexaad waxaan ugu talagalay inaan uga hadlo nebi ismaaciil markii aabbihii uu keenay maka kadibna uu ka noqday. nebi ibraahim wuxuu qaban karay qabtay ee uu isaga iyo hooyadii isu daayay ismaaciil iyo hooyadii ismaaciil meesha uu ku qangaari doono iyo wixii ka ratibmay baan doonayaa inaan meesha ka sii wado. nebi ibraahim wuxuu ku noqonayaa dhulkii uu ka yimid ee dhulka muqadaska ahaa, halkaasuu ku dhimanayaa. kadibna ismaaciil wiilkiisa iyo hooyadiisa waxa ay joogayaan ay ku barbaarayaan ay maxaan ku rahdaa ay maxaa la dhihi jiray halkaasaanu sheekada ka wadaynaa. nebi ismaaciil calayhi salaam marka uu dego uu saldhigto maka oo u qaangaaro maka, markaa waxaa ka agdhow oo markii biyihii zamzamka ay meesha biyo yeelatay waxaa soo degaya dadkii badwiyiintahaa meesha ka agdhowaa oo reer la yidhaahdo jurxam. qabiilkaasi baa daris la noqonaya oo magaaladii soo degaya. magaalo maahan, adigu waa maka. marka ay juxramta soo degaan oo qabiilkaasina asalkiisu waa qabiil carab ah oo ka yimid reer yaman, maxaa yeelay yamanta asalka ah ama carabta asalka ah waa reer yamaneed. idaana wax badan ka hadli doono hadduu allidmo. ismaaciil wuxuu guursan doonaa gabadha uu dhalay markaa jiifkii ama ninkii kaabo qabiilka ahaa ee reer juxram ayuu guursanayaa si uu reerka ula xidido. marka waxaan doonayaa walaale inaad isla fahamno, sheekaydu ma aha sheeko dheer oo tasiiro ah, laakiin waxaan doonayaa inaan dood isku xirxirno. kow, meeshaan waxaan rabnaa inaan ogaano ismaaciil baa imaanaya, reer buu ka guursanayaa, isagiibaa waxaa ka farcamaya leen dheer oo ismaaciil ku abtirsada. reerka uu ka guursaday ee reer jurxamka ahna iyana qeyb waxa weeyaan la rabo in la ogaado yay yihiin, xaggey ka yimaadeen, influensiga ay ku leeyihiin ereadana maxay tahay ama islaamku ay ku yeelanayaan. iyo qeyb kaloo iyana jirta oo runtii aan rabnay inaan wax badan ka ogaano oo ah carabi horta maxay tahay. iyana waa rabnaa runtii in aanu wax ka ogaano. carab sideedaba waxay u qaybsantaa 3 qaybood. qeyb waa carab burburtayoo baaba'dayoo oo la yidhaahdo carabtii tagtay, alcarabul baa'ida, carabtii perished arabs. carabtaasi waxaanu tusaale usoo qaadinay 2 qolo. qolo waxay tahay reer caad oo nebi huud loo soo diray magaalo aanan ka fogeyn maxaa la dhihi jiray soomaaliya iyo maxaa la dhihi jiray meesha aanu ku naalo geographically yaman ilaa iyo maxaa la dhahaa dhulkaas oo xadramuud ayay maxaan ku rahdaa ayay deganaayeen. xadramuud oo qofka soomaaliga haddii uu u safro wax yara ku qaadanayso ilaa aad maxaan ku rahdaa attentionkaaga uu gaaro heerkaasi ma dareemaysid. marka halkaasi reer caad noo soo gaareen, halkaasina maxaan ku rahdaa raadkoodii iyo aathaartoodii ka muuqataa. nebi huud halkaasuu maxaan ku rahdaa dacwada ka bilaabay, qoladii loo soo diray, qoladii kibirka badneed ee waaweyneyd ee aanu aayaadka qur-aanka ku aragnay, irama daati alcimaad allatii lam yuqlaq mithlaha fi lbilaad, halkaasay ku noolaayeen. marka waadul axqaaf iyo reer caad waxa weeyaan waa dadkii hore ee carabta ahaa ee burburay. kadib waxaa jira iyana qolo kale oo loo yaqaano thamuud. reer thamuud iyana waa hadda waddanka sacuudiga ah ee madaa'in saalix ee tabuuq iyo madiina inta u dhexaysa ayay ku taallaa. ilaa hadda booqasho kolay kumaanan tegin, nebigeenna maxaan ku rahdaa waa uu ka digay, laakiinse waxay u muuqataa meel mustaqbalka dhow dowladda hadda ka jirta sacuudiga ay ka dhigi doonto goob aad loogu dalxiiso ee aad loo promote gareeyo, la market gareeyo ayaan u malaynayaa sida hadda ay sheekadu ku socoto. marka laakiin muhiimaddeedu waxay tahay reer caad iyo reer thamuud labaduba
ee aanu naqaano taariikhdooda kitaabka waxyaalo meel badan bay kaga soo noqnoqonayaan waa qolo carbeed carabtii hore ee baaba'day weeyaan wixii ka haray ayaynu ka hadli doonaa markaa aayaadkan waad ku arkaysaan dadka awoodda weyn ee buuraha faganaya buuraha guryaha ka dhiganaya maxaan ku rahdaa waxaad u malaysaaba sida sawirada aad ku arkaysaan dhulka hadda madaa'inu saalix marka aad runtii artid aana doonay adiguna inaad research ku samaysid madaa'inu saalix oo taariikh dheer maxaan ku hadda la faganayo la arkayo thamuud halkaasay maxaan ku rahdaa calaa kulli xaal marka hal tusaale oo aan rabo inaan kugu dhaafo waxay tahay qolooyinka caad iyo thamuud labaduba way burbureen waxbaa ka haray marka wixii ka haray waxay noqdeen marka pure Arabs qolo loo yaqaano oo al-Arab al-Ariba carabta dhabta ah weeyaan carabtan pure-ka ah waxa ay ka soo jeedaan iyagu nin maxaan ku rahdaa progeny of Ya'rub bin Yasjud bin Qahtan qaxtaankaasi ayay ka soo jeedaan qaxtaaniyan tribes qabaa'ilada qaxtaaniyiinta ah weeyaan marka qaxtaaniyiinta iyaga waxa weeyaan Yemen iyo dhulkaasi ayay degayaan halkaasayna ku badanayaan oo waxaa ka mid ah waa boqoradii maxaan ku rahdaa Shayba oo laba qayb ahayd Ximyar iyo Kaxlaan ayay u kala qaybsamayaan ujeedada aanu ka leenahayna waxay tahay in aan wax ka ogaano dad badan oo maxaan ku rahdaa islaamka raad ku yeelanaya oo muhiim inoo ah inaan ogaano innaga haddaanu nahay Soomaaliland aan inagaba fogeen Yemen iyo Berbera Yemen iyo Boosaaso waad garan karaysaa inta isu jiro dadka iyo xiriirka aanu la leeyahay maxaan ku rahdaa Yemen iyo Cadan iyo Xadramuud iyo Sanca maalin kastaan u kala sodcaalnaa marka taariikhda ay ku leedahay islaamka iyo taariikhda ay ku leedahay humanity-ga bini'aadamka in aan fahmo oo ila fahamtay aan wada fahmno iyo calaaqada ay ku leedahay maxaan ku islaamka iyo marka casharo laga baran karo runtii waa wax aan isleeyahay waa muhiim waa waxa sababta ugu kalifaysa marka in aan is iraahdo malaha wax adiga aadan ogeyn ee maxaan ku ninkan da'adan gaaray waxyaalo badan oo hadda kuu baxaya in aan dadkayga la sheer gareeyo waa arrintii ugu qasbaysa marka calaa kulli xaal siiradu waad ku maraysaa haddaad siiro soo barateen alxamdulilah laakiin dadka aan la hadlayo badankooda haddii xitaa ay siiro soo qaateen ama soo mareen oo ay casharadaasi maxaan ku rahdaa soo barteen waxaa dhici karta waxyaalo badan oo isku xir ah ayaa runtii inaga maqaabanaya ama at least aynu u baahanahay inaan wax ka ogaano ayaa meeshaa jira waxaa kaloo jira iyana Kaxlaan kuwii qoladii kale ee maxaan ku rahdaa Ximyar iyo Kaxlaan ayay labadaa qayb bay ahaayeen Kaxlaaniyiintu iyana qabaa'ilo badan oo kamid ah ayaa guuraya oo waxay degayaan maxaan ku rahdaa dhulka hadda Sacuudiga loo yaqaano waxay magacooda kuwa hadda aan jeclahay inaan ogaano Aws iyo Khazraj ayaa waxay degayaan Madiina ama Yathrib markaa la dhihi jiray waxaa kaloo kamid ah iyana maxaa la dhihi jiray Kandah iyo magaalooyin badan oo maxaan ku rahdaa Ghazan qabaa'iladii Kaxlaaniyiinta Sacuudiga iyo wadamada maxaan ku rahdaa deriska la ah ee markaa hal dhul ahaa ayay kala degayaan oo ku badanayaan taasoo raad ku yeelan doonta saameyn ku yeelan doonta taariikhda islaamka wanaag iyo maxaan ku rahdaa xumaanba hadday noqoto dagaaladii hore hadday noqoto islaamka caawintiisa waxaasoo dhan insha allahu sababta aniguba aan doonay inaan kula wadaago wax weeyaan buuggii iyo researchka aan sameynayay wixii aan ku ogaaday ayaan rabaa inaan practice gareeyo si anigu aan u fahmo kadibna ay noqoto wax anigu aan gudbinayo maadaama aanan doonin aqoontaasi inay anigu ugu baaqi noqoto ay dab iyo cadaabad ii noqotaan kadibna carabtan kale ee waxaa jirta mustacriba carabta mustacribada ah nebi Ismaaciil gabadhii uu guursaday ee jiifka uu ka guursaday waxaa ka dhalanaya isagana caruur tiro badan oo maxaa la dhihi jiray loo yaqaano carabtii ee maxaa la dhihi jiray carabowday carabta carabowday iyagu waxa weeyaan waa Ismaaciil bay ka imaanayaan ee Maka degay ee guursaday gabadhii jiifka Juhram tribe-ka ahaa kadibna markaasi waxaa ka asaasmaya isagana Cadnaaniyiin iyo oo aad maabkooda halkan ku arki doontid ilaa iyo Quraysh ilaa iyo Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam
kadibna waa tan aan rabno quraysh inaan u daadegno kadibna islaamka iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waxyaalaha rasmiga ah ee annaga danta noogu jirto aan doonayo ujeedadeeduna ay tahay marka fariinta aan rabo maanta inaan kula wadaago waxay tahay taariikhdu sida ay uga dhacaysa meelaan naga fogeyn haddaanu nahay soomaali ama dadka ku yaala ama ka yimid afrikadaasi bari taariikhdu waxa ay ka dhacaysay meel aan innaga aada nooga fogeyn waxaana doonayaa 3 taariikh oo muhiim ah inaan kula wadaago yaman oon aada uga soo sheekeynay baan rabaa taariikheedii hore inaan wax yar ku daro koo waxa weeyaan dhulkaasi waa dhulkii ay deganayd boqortooyadii shiiba ama saba waxaana ka dhacday taariikhdii ama sheekadii xiisaha badneed ee boqoradii bilqiis ee shiiba u talinaysay iyo hudhudka ee nebi suleymaan calayhi salaatu wasalaam ee suurad kusoo aayadka qur-aanka aad ku arkaysid marka hudhudka markuu soo daaho nebi ibraahim nebi maxamed kula suleymaan uu waayo kadibna marka uu yimaado sheekada uu ka sheekeynayo dadka laga sheekeynayo waa dadka yaman degan oo shiiba innagana aan naga fogeyn taariikh dheer baa dhacaysa oo balqiis oo qur-aanka aad kaga boganaysid taasi waa number 1 dadkan boqortooyada meesha degana reer shiiba iyana waxyaalaha xadgudubka iyo kibirka marka qaarkood alla markuu kuu nimceeyo ee dadku ay isla waayaan oo isgaran waayaan wax ay yihiin bini aadan iyo inay isu arkaanba inay wax kale yihiin ayaa waxaa dhacday sheekada cajiibka ah ee maxaa la dhihi jiray iyana u baahan in runtii aan kugu baraarujiyo waxaa iyana ka dhacaya meeshaasi dadkaasi waa loo nimceeyey alla subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay suuratu sabuhun ku sheegay marka uu leeyahay alla subxaana wa tacaala laqad kaana lisaba'in fii maskanihim aaya calaamad cibro qaadashaa ku sugan jannataani can yamiinin wa shimaalin kuluu min risqi rabbikum washkuruu lah rumeeya ilaahay maxaan kula risiqiisa maxaan kula ku mahadiya kuna shukriya baldatun tayibatun warabbu ghafuur maxay sameeyeen markaa fa acraduu fa arsalnaa calayhim sayla alcarim وبدلناه بجنتيهم جنتين ذواتي أكل قمط وأكل وشيء من سدر قليل إلى آخر محاكرة شيء كذاس وحاسي وحي كدعيان وميل أي نغفوغين أو بربرية بوساسو جبوتي هداي كروغا سعدان أن محاكرة دا يقولوا ينكران هدي بيها أي كتلابان دون ير أي وقود بكران تاريخ لسا كدعيس taasoo runtii u baahan baraarujin gaar ah iyo aqoon kale oo aan rabno inaanu ka qaadano taasi waa taariikh kale oo aan rabo in aan kula wadaago waxaa kaloo iyana jirta taariikh kaloo saddexaad ee aan doonaya inaan maxaan kula wadaago taariikhdaasi wax weeyaan dhulka yaman ee hadda laakiin aanan ka tirsan yaman maadaama waxyaalo badan isbedeleen taariikhda kala qaybin badan ay dhacday magaalada la yidhaahdo najraan ee hadda sacuudiga ka tirsan ee dadkaygu marka ay maxaan ku rahdaa yaman ay ka sodcaalaan waddanka ay usii gudbayaan qaar badan lugeynaya najraan baa marnay iyo saasaan maqli jiray waxaa joogi jiray waagii ee boqortooyada ximyarka ay ka talinaysa dhulkaasoo dhan oo kaxlaaniyiintuna ay ka gareeyeen oo maxaa taariikho badan iyo diimo badan yahuudiyaad baa timid christianity baa timid intaan islaamku imaan kadibna islaamka maxaan ku rahdaa meesha hadda iyo islaamkii oo noocyo badan oo shiico iyo kalaba iyo sunniyiinba leh laakiin taariikhda aan raba inaan highlight gareeyo waxay tahay marka boqor la yidhaahdo Tunuwas oo king of Himyarite kingdom ah oo markaa wuxuu qaatay diinta Judaismka wuxuu samayn doonaa gaboodfal weynaada ku sameynaya meeshaasi dad markaasi ayuu meesha ku xasuuqayaa dadka maxaa loo yaqaana mataqaan أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود the people of ditch أصحاب الأخدود
oo suuratu wasamaa'i daati alburuuj walyowmi almawcuud washaahidin wamashhuud qutila asxaabu luqduud annaari daati alwaquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shahuud waxaas suuraddaas dhanaa ka sheekeynaysa iyo taariikhdaas isna waxaan kaa codsanay inaad baartid marka waxaasoo dhani waxay ka dhacayaan deegaan ay inaga fogeen oo taariikh runtii saameynteeda leh waxyaaba badan laga fahmayo boqor kibray dad wuxuu ku sameyn karo ninkan oo kale xadiiska nabigeena calayhi salaatu wasalaam baaritaan ku samee marka wiilka yarka ah maxaa la dhihi jiray sixiroolahu u tababari doono kadibna boqorkiisii uu maxaa la dhihi jiray ku caasini doono kadibna wiilkaasi iyo wixii uu mudan doono sheeko dheer weeyaan marka saddexdaa sheeko runtii xiisay ii lahayd waxaana doonayaa in aan qaybtan ku daro si aad adigana aad wax uga fahamtid kadibna hadduu alle uu ku qadarana inaad research badan uga samaysid marka fariinta ugu dambeysa ee qaybtan aan ugu talagalay waxay tahay nebi ismaaciil markuu qaangaaray waa uu guursaday wuxuu ka guursaday qabiilkii markaa deegaanka la deriska ahaa boqorkiisii buu ka guursaday ama maxaan ku rahdaa chiefkoodii kaaba qabiilka kadibna meesha waxaa ka ratibmaya marka dad badan oo mustacrabiin ah oo caraboobaya maadaama nebi ibraahim isaga uu ka yimid oo ibraahim uu dhalay halkaa carabtaan halkaan deganeed uu ka guursanaya mustacrabiin baa ka imaanaysa oo ka dhalanaysa oo ilaa iyo quraysh dadkaasi waan arki doonaa iyo taariikhda iyo influenciga annaga inagu leeyihiin mustacrabiin dadkii caraboobay waxaan kaloo baranay dadkii kale iyana maxaan ku rahdaa carabta hadda markaa pure carabs loo yaqaan ama carabta caaribada ah ee iyana yaman ee ximyar iyo kaxlaan qaxtaaniyiinta iyana waanu baranay waana kugu introduce gareeyay si adigu aad researchkaaga u samaystid iyo carab tagtay oo baarida oo horumartay ee reerka maxaan ku rahdaa huud iyo saalex qolyihii loo soo diray ee caad iyo thamuud ahaa ayaan tusaale usoo qaadana iyagayna ahayaa carabtii tagtay marka saddexdaasi iyo wixii ka dhasha iyo nebi ismaaciil ubadkiisii insha allahu ayaanu usii gedageli doonaa hadduu allaydmo qaybta iyada saddexaadna intaasay ku dhan tahay waxaan jeclahay in aan waxa aan idinla wadaagayo waa aragtidayda sida marka aan research iyo akhrin badan aan sameeyey wixii aniga ii muuqday iyo fahamkii aniga aan qaatay ee aan doonayo inaan adigana kugula wadaago haddii aan saxsanahayna walaala waxaan kaa codsanayaa in aad sidaas u qaadatid igu shukri ku dhihi maayo thank you kaama rabo like-na kaa dooni maayo waxaan kaa rabaa keliya haddii wixii aan ku saxsanahay adiguna sidaas u qaado kadibna sidaa ugu dhaqan haddii aan qaldanahayna waxaan kaa codsanayaa isax maxaa yeelay ilaa inuu yahay waxa qadaf ama hadal oo maxaan ku rahdaa hadal carabku iga dafay oo aanan u dan lahayn haddii uu yahayna waa saxaya haddii faham qaldan aan qaatayna hadda waa saxaya markasta waxaanu taaganahay in la isaxo intaasaan cashirkii maanta ama aqoon iswadaarsigii maanta aan ugu talagalay intaasaan kusoo xirayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu